xaaladda deegaanka beriire ee jiinka webiga shabeelle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa lagu soo waramayaa inay caawa degan tahay kadib markii maanta dagaal ay halkaasi kula wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya oo ay wehelinayaan ciidamada amisom iyo weliba ciidamo aan sidaasi u badnayn oo la sheegay inay caddaan ahaayeen. ciidamadaasi iskaashanaya ayaa qabsaday deegaankan oo 14 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. intii uu dagaalkaasi socday 7 qof oo rayida ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen markii ay miina la qaraxday gaari caasi ah oo ay ku qaxayeen duleedka Beriire. wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhaya deegaankaasi gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim Ibrahim ayaa uga waramay Maxamed Colaad Xasan. maalmahanba waxaa socday howlgallo maamulka koonfur galbeed iyo dowladda dhexe iska kaashanayaan iyo saaxiibadooda amisom oo runaantii dib loogu soo celinayo gacan ku-haynta degmada Afgooye deegaanada ku xeeran. runaantii waxay ahayd weerar hore loo qorsheeyey oo maamulka degmada iyo gobolka iyo madaxda sare ee dowladda federaalka iyo kan koonfur galbeed ay ka wada shaqeynayeen. deegaankaas maanta lala wareegay run ahaantii ka degma Afgooye ahaan waa wax aadaan usoo dhaweynayno oo na farxad gelinayo. waa deegaanadii run ahaantii inta badan laga soo abaabuli jiray dhibaatooyinka shacbiga reer Afgooye hore loogu geysan jiray. bal haddaad wax ka maqashay wax khasaara oo dagaalkii maanta ka dhashay? run ahaantii gaari shacab ah oo miino la kacday mooye hadda khasaare kale oo ciidamadani soo gaareen ma jiraan. guulo ayay kasoo hooyeen ciidamada dhammaan deegaanada ee horey uga soo laadayeen. runaantii kooxaha nabadgudku waxay gacanta ku hayeen dhowr tuulo oo degmada Afgooye hoos imaanaya sida tuulada Mareerey, tuulada Sabiid iyo Caanole, Moordile, Beledul Amiin. intaasoo idilna runaantii waxaa isku fidiyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo runaantii maalmahanba waday dhaqdhaqaaq lagu sifeynayo kooxaha nabadgudka ee ku teedsan gudaha gobolka gaar ahaan degmada Afgooye iyo deegaanada ku xeeran. marka baabuurka rayidka miinadu la qaraxday dhimashadu waa imisa? ilaa iyo 4 qofood oo dhimasho ah, 3 dhaawac ah inta hadda anagu aan xaqiijinay. waxayna qayb ka tahay kooxaha nabadgudka dhibaatooyinka ay u geysanayaan shacabka. waan ugu tacsiinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibaatadaasi shacabka soo gaartay. dagaal markuu dhaco runaantii khasaaro waa la filan karaa, laakiin ciidamada xoogga dalka maanta waxay soo hooyeen guulo sharaf leh wax lagu qaadi karo. kooxaha nabadgudkana waxaa ku dhaca dhawarjab aada u ballaaran. runaantii waxaad malaysaa in maanta degmada Afgooye u tahay maalin taariikhi ah. waa gartay dadka goobjoogayaasha ee magaalada ka soo qaxayay saaka waxay noo sheegeen Beriire in ciidamo ajnabi ay la socdeen oo ka baxsan kuwa amisom. ciidamo kale miyaa jira oo aan ahayn kuwa amisom iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo wehliya? ma kala qaadayna dhammaan laamaha amniga. howlgalka waxaa sameynaya ciidamada amisom iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. way jiri karaan ciidamo kale oo run ahaantii qayb ka ah nabadgelyo kusoo dabaalida guud ahaanba dalka. wayna jiri karaan mana kala qaadayna dualaydmo. waxayna qayb ka ahaayeen guud ahaanba ciidamada dib u xireenta deegaanada run ahaantii ay ku sugnaayeen kooxaha nabadgudku. ma dhihi karno shakhsiyaadka waxa ay ku sifeynayaan ama ajnabi ama wax kale. waxa howlgalka sameynayay ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibadoodii. waa gartay deegaanka Beriire haddaan usoo noqono waa deegaan yar oo webiga jiinkiisa ah oo dhul beereed badan uu ku yaallo oo dad beeraley ay degan yihiin. ahmiyad intee leeg ayay u lahayd ururka al-shabaab? deegaanka Beriire run ahaantii ahmiyaddu ay shabaabka u lahayd iyo kooxaha nabadgudku waxay ahaayeen ahmiyad aada u ballaaran. waxaa ugu furnaa maxkamad ay iyaga ku arimiyaan iyo xafiisyo iyaga meesha ay ku lahaayeen oo guud ahaanba gobolka intiisa kale ay ka xukumayeen. deegaanka Beriire run ahaantii kooxaha nabadgudka la wareegida maanta ciidamada xoogga dalka ay kala wareegeen wuxuu ku noqonayaa dhawarjab aada u ballaaran. kooxaha nabadgudka intooda badan waxay ahaayeen kuwa isku wareysta deegaankaas Beriire gobolka Shabeellaha Hoose marka la dhaho. deegaan kale waxaa jira isna Tooro laha isla gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan oo dhibaatooyinka shacbiga Soomaaliyeed ay u geystaan ay kasoo abaabulaan. runaantii waa guulo maanta aanu dhihi karno guud ahaanba waxaa loo soo hooyey ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna waa ku amaanaya guusha geesinimada leh maanta ay gaareen. run ahaantii shacabka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqi lahaa in ay garab siiyaan ciidamada xoogga dalka ili howl lana shaqeeyaan. ugu dambeyntii horey ciidamada Soomaaliya ma aha markii ugu horeysay oo ay tagaan Beriire ama Janaale ama Owdigle ama magaalo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose oo ay qabsadaan, laakiin way kasoo baxayeen. rajada laga qabo in ciidamada halkaa kusii sugnaadaan intee la egtaa?
runaantii taa iyada ah maku faahfaahin karo, waayo waa xeelad military. waxay ku habboon tahay ragga ehelkeedii ah in wax laga weydiiyo. haddii ay u arkaan ciidamada xooga daqiiqada hadda aan taagannahay inay kasoo baxaan oo sababa jira awgeed way kasoo bixi karaan. haddii isla gartaana saraakiisha amniga in ay ku sugnaadaan istaraatiijiya ahaan in ay kasoo digarogtaan intaba way dhici kartaa. waa howlo military. mar raba gudaha inaan usii galo, laakiin waxaan ku xaqiijinayaa saacadaan ul taagannahay ciidamada xooga dalka in ay ku sugan yihiin deegaanka Bariire iyo deegaanada ku xiran oo horeyna aan kugu sheegay. horeyna ay usii wadi doonaan howlgalada gobolka guud ahaanba. kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim Ibraahim oo u waramayay Maxamed Colaad Xasan. dhinaca kale wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa mid ka mid ah dadkii saakay dagaalka uga qaxay degmada ama deegaanka Bariire sababa dhinaca ammaankiisa aan u qarina magaciisa ay ka wareysatay wixii dhacay ee uu arkay. dagaalku wuxuu bilowday abaaro 12 iyo barkii subaxnimo. 3 direction ayay kasoo bilowdeen. waa markii ugu horreysay waxaa lagu soo bilaabay deegaanka Bariire hoobiyaasha noocyadiisii kala duwan ay adeegsanayeen ciidamada Soomaaliyeed iyo kuwa saaxiibadooda ah. sidaad la socotidba Bariire waxay u jirtaa masaafo dhan 14 kilomitir dhanka koonfureed ay kaga baagan tahay degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose. deegaanka Tortorona waxay kaga beegmaysaa haddii dhan la yiraahdana dhanka bari waxayna u jirtaa 18 kilomitir oo dhammaystiran ay isku jiraan. saddexdaas jihaba waa laga soo galay. waayahay marka maxaad arkaysaan adinka deegaanka dadka joogay ah? deegaanku kolba marba hadday baqdin timaad waa dareemi kartaa. aaba iyo hooyaba waxay kow ay la cararayaan waa duriyday dhaleen. deegaanka durbadii waxaa bilowday inay barakac ka bilowdato, waxaana barakacii ugu badnaa oo jidka ugu furan keliya oo noqday jidka dhanka iyo Tortoro soo aada, maadaama dhankii wadadii Afgooye ka imaanaysay ay ku yimaadeen ciidamada midowga Afrika. dhankii lambar 50 haddii laga bixi lahaana ay ku yimaadeen ciidamada midowga Afrika. ciidankan jidkan ah oo welina aan soo gelin ay dadku waxay baqdin badan marka dhanka rasaasta aysan u badnayn in ay usoo barakacaan ay usoo cararaan. marka falilahi alxamdu khasaaraha ugu badnaayo shacib gaarisaaka wuxuu ahaa miinooyinkan dhulka lagu aaso oo loogu talagalay baabuurta ama cabdibalayaasha dawladda ha noqdeen ama kuwa midowga Afrika ha noqdeen. bamka lagu aaso dhulka nooca remote controlka ah ayuu hoomi kula qarxay. waxaa ku geeriyootayna waa 7 ruux, dhaawac halka uu ka ahaana waa 4 ruux. deegaanka Bariirena markaan kusoo koobo si guud ahaaneed degmo maan waa deegaan Ismaaciil ah oo ku yaala jinkii webiga. waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka ma hado 7daas qof ee baabuurka hoomeyda ah uu qaraxa ku qabsaday gudaha deegaanka Bariire may ku jireen mase dad socoto oo kasii dhexbaxayay ahaayeen xaaladooda? bal maxaad nooga sheegi kartaa inta ka badan? abaaro markii la mooday 7 kilomitir ah ay si toos qaraxa ay kula koobsadeen. kadibna wada qarjaaxa bilaabatay maadaama wadada ay miinaysan tahay. xarakadan ugu talagashay isdifaac dhanka baabuuraadka awoodka leh iyo sentry ka madax banaanay awoodda hubka noocyadiisa kala gedisan uridaya hadday noqon lahay juugaga iyo noocyada kala duwanba. deegaanka Bariire waxaa ku tiilay waa 2 maxkamadood. walaayada islaamiga xarakada shabaab almujaahidiin ay maamulayeen. walaayadii gobolka Banaadir oo maxkamadoodii ama guryaha la kala haysta noqoto ama dhaxaltooyada ha noqoto ama dadka deynta isku leh gobolka Banaadir ku nool ha noqoto ama kuwa ku nool degmada Afgooye iyo hareeraheeda iyo nawaaxigeeda ha noqdeen. labadaas maxkamadood baa ku tiilay. bulshaduna saaka intaasi in kasii badan ba waxay imaan lahaayeen abaaro 2 saac ama 8 saac subaxnimo. khasaaruhuna intaas waa kasii badan lahaa iyadoo xilligii maxkamadaha furantay 2 maxkamad ay shaqeynayaan, bulshaduna ay ka tiro badan tahay safaf dhaadheer iyo lambare ay garanayaan. waxaad ii sheegtaa marka waxaad ii sheegtaa marka hadda deegaankii yaa gacanta ku haya la wareega deegaanka Bariire hadda? hadda si taas waxaa u maamulaya waa ciidanka dawladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadoodii midowga Afrika iyo qola cadaan ah oo iswehelinayo oo isgarabsanaya. walow dagaalka uusan hujuumka uusan ku koobnayn mid maanta ku cusub deegaanka Bariire uusan ahayn oo in badan ba ay dhacday in Bariire gacanta ay u gasho kadibna saacado kooban kadib abaaro 5 galabnimo ama 4 galabnimo ay dhici karto inay dib ugu soo ruqaansadaan goobihii ay ka yimaadeen dib ay ugu noqon karto. walow saacadan aan kula hadlay ay ku sugayeen ciidamada midowga Afrika iyo ciidanka dawladda iyo ciidamadaas cadaanka oo saaxiibadooda. marka ma arki kartaan oo magaalada deegaanka miyay dhex marmarayaan oo dadka caadi ay u arki karaan xataa ciidamada cadaankood ii sheegaysa tir ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd? cadaanka taqriiban 30 kama badna oo kaamiramanana ay la jiraan waaye. qoryaha M16 noocyada casriga ah oo yaryarna way sitaan.
kasii badan maba loo sii dhaafi karin ba ruux badan in gelaysa waa dareemi kartaa. hadda marka xaalka deegaanka ma degan yahay marka hadda? deegaanka awalba deegaan iska ismail oo ahaa oo iska yaroo dad beeraley ah iyo xoolo dhaqata ah oo jinkii webiga uu ku yiilay. intaba barakac hadda mar bilawdayba deegaanka deganaansho iyo deganaanshihiisa bulshada baa xukunta. kolba haddaysan bulsho meesha ku olanjaaro waxaad dareemi kartaa inuusan deganaansho oo sal fadhisa uusan ku lahayn deegaanka bulshadii. cid kale oo wax uu soo gaaray hoobiyaashii lasoo tuuray iyo jugtii ka hor inta xataa magaalada aan lala wareegin iyo deegaanka guud ahaanba ma jirtaa oo dad shacab ah ood ka warqabtid ka sokow 7 qof ee baska hoomeyd wax ku noqday? zahroy adigoo aada u mahadsan. waxaa jirtay qoys oo gaaray firirka hoobiyaha, aaboodna oo dhaawac ahaan oo gaaray qoriga loo yaqaano BKM-ka, walow aad mooday in odooga oo sirdhaban ahaa, laakiin ilmuhu oo firirka aada u waxyeeleeyey. la u xirneydna ay meesha ay ku baktisay oo hoobiyuhu uu dilay. marka khasaaruhu qaybahii kaleeto ayuu usii badnaa oo beerahay awood u garaacayeen iyo kaymaha ay baqdeynta ka qabeen in ay jeesaska xarakada shabaab almujaahidiin ay ku jiraan ay ka baqanayeen kuwan midooda Afrika iyo kuwa dawladda ah. kaymaha ay aada u garaacayeen iyo beerahii, walow beeruhu oo khasaaro badan uu soo gaaray idaarada. kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka Berire oo xilli saaka uu ka qaxayay magaalada u warramaya wariyaha iyaga Sahra Cabdi Axmed.